وعن مركل صاحبيال badankeenu waxaan wada isticmaalnaa Facebook oo laga yaabay hadda inaad iga daawanayso sidaas si la mid ah shirkadda Facebook waxay si aad ah u adkeynaysaa sharciyadeeda waxaan isku dayaysaa runtii inay xakamayso dhaqan xumada kaga imaanaysa dadka isticmaala Facebook aniga iyo adiga oo isticmaala ay saameyn ugu yeelanaysaa sharciga Facebook oo la adkeeya haddaba fiidiyogan waxaan rabaa inaan kugu tusiyo sharciyo runtii aad xasaasi u ah haddii aad ku dhacdana sababi kara in ciwaankaaga hawada laga saaro sidoo kale aan ku weydiiyay ma aragtay mararka qaar in lagu soo qoro 7 maalin gudahood ayuu ciwaankaaga xirnaa doonaa ama 5 maalin ayuu xirnaa doonaa ama si temporary ah ayaa ciwaankaaga loo xiray Facebook waxyaalahaas oo dhan waa dhacdooyin runtii soo tareeyay dadka bulshadan ka soo yeerayay si ahaataba sharciga Facebook waa isbedelay hawshuna way adkaatay waana muhiim adiga daawanay inaad wax badan ka ogaato sharciga saxda ah ee Facebook haddaba soo dhawaada saaxiibayaal hadda waxaan diyaar u tahay ayaan filayaa inaad kula wadaago fiidiyowani sida caadiga ah Facebook waan isticmaalnaa laakiin waxaa jiro shuruuc la isticmaalo marka aad Facebook isticmaalayso sanadkan cusub shirkadda Facebook waxay soo kordhisay sharciyo cusub oo aad u adag sharciyadaas waxaa ka mid ah waxaan isku dayayaa inaan kuu soo koobo sharciyadaasi Facebook gaar ahaan marka isticmaalayso appka Messenger oo ay leedahay shirkadda Facebook kuma diri kartid sawirada qaqaawan waxa ula jeedaa sawirada ay ka muuqato waxa loo yaqaan sexual transmitting sawiradaasi ma u diri kartid saaxiibka ama saaxiibada haddii aad dirtane shirkadda Facebook waxay kuu ganaaxi doontaa 7 maalin gudahood inaadan isticmaali karin bartaada Facebook xitaa haddii ay kuu fasaxdana waxay ka xayiri doontaa qaybta message-yada 2 shirkadda Facebook kuma faafin kartid oo kuma diri kartid link virus wata 24 saac shirkadda Facebook waxay ku dadaalaysaa ilaalinta xogaha dadka si la mid ah waxaa jiro linkiga awood ku siinaya inay soo akhriyaan xogta qofka kale haddaba ma share gareyn kartid link virus wata haddii aad isku dayid inaad share gareysane ciwaanka shirkadda way ka xiri doontaa 3 sharcigani waa sharci badan dadka ay ku dhacaan waxa uu yahay haddii qof wax uu soo dhigay Facebook waxaasna ay yihiin wax naxdin leh ama wax ay ka muuqato sexual transmitting ama wax ay English ah ku qoran haddii aad share gareyso kuna share gareyso qolal fara badan share gareyntaaduna ay noqoto ma cadna wala xisaabna shirkadda Facebook ay ka shaki doontaa gabi ahaanba ciwaankaada ay ka xiri doontaa si la mid ah haddaad statuska Facebook-gaaga aad soo dhigto waxyaalo ka muuqda sexual transmitting isla sidoo kale shirkadda Facebook way ka xayiri doontaa gabi ahaanba sidoo kale sawiro ayaa jiro oo 2 iyo 3 gaaraya oo haddii aad Facebook soo dhigto ama aad share gareyso ama xitaa status soo saarto gabi ahaanba ciwaankaaga laga kansanayo sawiradaasi waan kula soo wadaagi doonaa haddii aad fiidiyowgani isha ku sii hayso waan filayaa inaad fahantay sharciyada Facebook fadlan haddii intaas iska ilaaliso waxaad awood u yeelan doontaa si nabdood inaan ku isticmaasho aaladda Facebook ama mareegta Facebook haddaba waad ku mahadsan daawashada fiidiyowgan waxaan kaa codsanayaa inaad saaxiibadaada la wadaagto waan ogahay dad badan oo adiga asxaabtaada ka mid ah ayay ku dhacday ciladan si fudud ula wadaag adigoo taabanaya calaamadda share sababtoo ah ujeedka aniga aan kula soo wadaagay waxa ay tahay inaad adiga ka faa'iideysato si la mid ah inay ka faa'iideystaan bulshada oo dhan haddaba la wadaag adigoo taabanaya calaamadda share si uga faa'iideystaan waad ku mahadsan daawashada fiidiyowgan haddaba qaladyada aan soo sheegay ma jiraa qalad kamid ah aad ku dhacday hadduu jiro qaybta hoose faalada commentiga wala soo wadaag si la mid ah qaybta commentiga codeyn ayaa jirta ha iloobin waxaan ku rajeynayaa guul wacan